الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله ولا ريال قرآن الكريم وهداية والنور dadka bani aadamka ayaa lagu talagalay inuu ka saaro mugdiga iyo burburka iyo wax kasta oo dhibaato ah quraanka kulligiis daawo weeye quraanka dhamaantiis waa hidaayo waxaana ka mid ah suuratul faatixa oo lagu tukado oo loo doortay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan kula hadalno salaada dhexdeeda quraanka iyo badan ay ku jiraan suurado badan ayaa suuratul faatixa loo doortay sababtu maxay tahay suuradaasi waa suurad sida culimadu ay sheegeen wixii quraanka ku jiray oo nuxurka ahaa ayaa lagu sheegay suurada ayada ah guud ahaanna quraanka kariimka wixii ummadihii hore loo sheegay ama lagu sheegay tawraat ama lagu sheegay kutubadii hore dhamaantood quraankan bay ku jiraan nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis buu noo sheegay saxiix ah in quraankaani uu ka fadli badan yahay ama uu kulansaday wixii ka horeeyay dhan rasuul alayhi wasallam uqtiitu makaana tawraati as-sab'a tiwal booski tawraat waxa la siiyay todobada suuradood oo dhaadheer wa uqtiitu makaana az-zabur al-mi'in booski zaburna waxa la siiyay suuradaha boqolka ah wa uqtiitu makaana al-injili al-mathani booski injiilna waxa la siiyay suuradaha aayadaha badan leh laakiin aan boqolka gaarin وفضلت بالمفصل سبع لا يقال مفصل أما سبع خميسات لا يقاننا وديرات انت كلا أي اسكف قصتي بوسكي توراة إنجيل زبور انت كلا كؤدن سبع خميساتنا وديرات بالليل وحي الوشة القرآن كنا وحي علماء سورة الفاتحة الوشة القرآن كجودهان وعافمات وشفاء لما في الصدور إنسان كنا وإنسان ومخلوق عذردي سابدا دباتونك سابدا دباتة شهوة لا كترته دباتة شبهاتك لا كترته دباتة طمع يا كترته دباتونك مخلوقاتك دمانتود وحي أي صفات اللهايين هذا يحيي وكجران هذا في عينه وبجران ولذلك إنسانك هذا في ناضنا حياله في عم بصمين يا وأنا وحى إلى وتلقلي أو أبوري ويري إني جاعل في الأرض خليفة وحى إنسانك الله أبوري إنه سميه وحصب ومركي لأبوري أنجرين ملائكة والجوتي يسبحون ويقدسون أذكار بدن هي أولاد بدن هي تصبيح ويتالي لكن محامقنا وحامقنا إن الله أبوره نلو إلهي رب سبحانه وتعالى وعبادة له وعمل له وقول له وترن له وحلال له وحرام له لو شنو عص أو كلاه إنسان كان بسمين كريم ساس بالله أبوره مركا إنسان فسوق النقضة متقته وحلو أبوري ayaa kitaabkan loo soo dajiyay kitaabkan oo daaweynaya cudurka koobaad oo nala ka daaweynaya waxa weeyaan al-jahl billah ilaahay subhanahu wa ta'ala qaan la aqoonin waa jahliga ugu daran weey qofka ilaahay aqoon subhanahu wa ta'ala aan aakhira aqoon aan naftiisa aqoon aan meel laga yimid aqoon aan meel loo socdo aqoon koonkan asraartiisa aan ka warqabin qofka noocaas waa jaahil marka jahliga noocaas ayaa laga daaweynaya Allah subhanahu wa ta'ala ayaa lagu baraya inuu yahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin inuu rabbul caalamiin ayaa lagu baraya caalamiinta midka abuuray oo iska leh oo milkiya ku tasarufa irzaaqa inuu yahay lagu baraya inuu mahad leeyahay inuu alxamdulillah lagu baraya inuu raxmaanur raxiim yahay naxariista Allah bixiya waxa lagu nool yahay ama insaan ha ku noolaado ama xayawaan ha ku noolaado ama dhirtu ha ku noolaato
ama kownkan ha ku taagnaado waxa lagu taagan yahay waa naxariistiisa subxaanahu wa tacaala wey waxa naga maqanna xaggiisa ayay jiraan oo la weydiisanaya wamaa bikum min nicmatin fa min allah uma idaa masakum udurru fa ilayhi taj'aruun waxaa haysataan oo nicmo ah wax kasta ay haysataan oo nicmo ah xagga alle ayay ka ahaadeen haddii wax la waayana xaggiisa ayaa loo cabanayaa oo loo dan sheeganayaa marka allaha naxariista badan baa lagu barayaa waxaa lagu leeyahay waxa aa haysatid noocay noqdaanba waa naxariista alle weeye marka ku xamdi asaga garo asaga ku shukri arraxmaan arraxiim weeye maaliki yowmi ddiin ama maliki yowmi ddiin maalinta aakhiro allaha iska leh oo boqorkeeda ah weeye kownkan waa socdaa kownkan waa geedi waa la guurahayaa laakiin markii ay qiyaamo timaado ayaa waxaa imaanaya kownkan jazihiis kala baxa iyo xukunka iyo xisaabtanka xaggaasuu jiraa maxaa yeelay kownkan intaas oo dad u wanaagsanaa ayaa soo maray oo wanaaggoodii aan amaalkoodii helin intaas oo dad oo daalimiin ah ayaa kownkan soo maray oo dhibka ay geysteen aan laga gudin intaasoo kiis ayaa ka dhacday kownkan insaan dulmiya xayawaan dulmiya waxaasoo dhan baa dhacay waxaas oo qadaayaad ama kiisas ah xagga aakhira la aadaya kiisas muuqda iyo kuwo qarsoon qofka qalbigiisa waxaa ku jira bannaankana waxbaa yaalla waxaasoo dhan aakhiro ayaa lala aadaya marka maaliki yowmiddiin allaha maalinta jazaha iskale wey marka waa inaad fahamsanaantaa allaha u tukanaysid oo aada caabudaysid waa allaha aakhiro iska leh waa allaha ku xisaabinaya haddana waa hor taagan tahay isagaa caabudaysa marka markii sifaadkaa lagu baray ayaa waxaa odhanaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo towxiidkii ah towxiidkiibaa iclaaninaysaa cibaadada ayaad go-aankeeda qaadanaysaa haddii ilaahay lagu baray subxaanahu wa tacaala oo inuu rabbulcaalamiin yahay lagu baray oo inuu raxmaan raxiim yahay lagu baray oo inuu maaliki yowmiddiin yahay lagu baray markaas waddo kale oo kuu furan ma laha inaad towxiidkaaga aada muujisid maahane oo aad tiraahid iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin kelimadaasi waa towxiidkii weeye waa caqiidada waxayna muujinaysaa inay tahay caqiido ku dhisan cilmi ku dhisan qof ilaahay yaqaana ayaa ku dhawaaqay qof ilaahay la baray ayaa kelimooyinkan ku dhawaaqaya marka towxiidkeena iyo caqiidadeennu iska dheh maah waa caqiido iyo towxiid sababaysan oo cilmi ku dhisan oo muqadimaad la weeye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin go-aankaasi waa go-aanka towxiidka weeye inay labalabac kaa gasho ma ah qofka muslimka waa daciif naf baa la xariirta shaydaan baa la xariira waxbuu iloobayaa waa jirtaa laakiin go-aan daciif ah ama go-aan khaldan lagaa yeeli maayo towxiidkaagu waa inuu kuu cad yahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa inay meel kuu taallaa samicnaa wa atacnaa waa inay meel kuu taallaa laa nacbudu ila allah waa inay meel kuu taallaa markii intaa lagaa helo ayaa markaas towbadaa kugu furan suuratulbaqara dhammaadkeeda markii suuraddu ay sii dhammaanaysay oo intaasoo axkaam lagu sheegay ayaa waxaa lagu soo khatimay aamana arasuulu bimaa unzila ilaahi min rabbi waalmu'minuun kullun aamana biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih wa qaaluu waxay yidhaaheen samicnaa wa atacnaa bay yidhaaheen kelimadaas wax ka sokeeya oo lagaa yeelayaa ma jiraan samicnaa wa atacnaa waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin weeye waa towxiidkii weeye laakiin maxaa noo wehliya waxaa noo wehliya gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ilaahu dembi dhaafkaaga ayaan dalbanaynaa ilaahu dembi dhaafkaaga maxaa yeelay go-aanka waa qaadanay laakiin bani aadan baa nahay oo dacfi baa jira
نفع شيطان باجرا مركا وحي ضعف كل ماذا غفرانك هي توبة كينك أياك غفرا لكن قرآن خلدم ولا بعد لبعه لقى يلي مهي مركا قرآن كقالتي وإله سبحانه وتعالى أدمار برتي وإله سبحانه وتعالى إن عابد يسيد مارتي إعلام السي وحا مركا ويديسن يسا وحا مارت لو ويديسته وحا وين أو هداية باهد وابدان تهي عافيمات دا جيري كره حياة كره جيري كره لكن باهدة هداية أيانا لو دورتي إن أنكو شاقنا ماشا أيضا اهدنا الصراط المستقيم إله نقو هنوني إله نقصو إله نو زيادي هاي هداية ولا ريال 10 لما هذا معه جامعة لقى قلن جبيو والله صاحر معه هدايته وباب اسكس عناية ودرجات وكلا سريسة واحدة ما هذا معه إن لقصو قلنا أيضا واحدة ما هذا معه إلى كون كان كجب حديد كلمة التوحيد مركز تدبع اسكا إيمان كره مركز هداية أو لقو زيادية هداية أو لقو صبح أي أباهنتها اهدنا الصراط المستقيم هداية أيضا هي وضع توصل أو أدل بليسد إنه هو هنونيا وضع هري لو مريوي ووضع أيضا مرين صراط الذين أنعمت عليهم dadkii wanaagsan oo loo nicmeeyay waa wadada ay mareen taasoo muujinaysa diintaani waa diin abtirsi leh diintaani waa diin taariikh dheer leh wadadan wada hadda la jeexayo oo qarda jeex ah ma ahane wada hore loo maray way oo horey loogu liibaanay annabiyiin was-sidiiqiin wash-shuhadaa was-saalixiin baa maray marka waxa lagu leeyahay kaliya ma tihid wadada hore loogu liibaanay adna raac baa leeyahay marka diintan waa diin ku dhisan ku dayasho waa diin ku dhisan daliil waa diin ku dhisan as-sunnah nabawiyya sallallahu alayhi wasallam marka qofka muslimka qof waxa weeyaan wadadiisa yaqaana waa qof dadka uu ku dayanayo yaqaana waxa inta uu helisa waa qof dadka uu ka leexanayo ayuu garanaya wadooyinka khaldan buu garanaya dadkeedana waa garanaya hadduu gartay siraadka mustaqiimka iyo dadkiisa wuxuu garanayaa wadada qalloocan buu garanayaa iyo dadkeeda wadadaasoo laba ah wadada almaqduubi calayhim kuwa loo carooday oo waa yahuudda la yidhi waa wadadaas maxay caan ku tahay wadadaas waxay caan ku tahay cilmi camal la-aana qof wax og laakiin wuxuu og yahay hareer maraya qof wax wuxuu og yahay aan yeelaynin cilmun bilaa camal ayaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa suu qasdi niyad xumi ujeedda xumi ayaa lagu yaqaanaa waa wadada almaqduub calayh midda kale waxaa weeyaan wadada daaliin waa cilmi la-aan ama waa camal cilmi la-aana qarda jeex maxaa kaniisooyin ah maxaa soorooyin ah maxaa dadaal ah wax ka jiraa ma jiraan maxaa yeelay hidaaye ma laha cilmi ma laha marka wadada yahuudda oo ah cilmun bilaa camal iyo midda nasaarada oo ah camalun bilaa cilmi labadaba waxa weeya laba wadoo khaldan weeye waa laga leexanayaa maxaa la aadayaa waxaa la aadayaa siraada aladiina ancamta calayhim oo ah cilmun wa camalun علم صحيحة العلم النافع والعمل الصالح أيام مريسا marka suurada waxay noqonaysaa qof muslim ah oo rabbiga yaqaan subxaanahu wa tacaala oo rabbigiisa caabudahaya oo wadadiisa haysta dadkiisa yaqaana ciduu ku dayanayo garanaya cidda uu ka leexanayo garanaya qofka noocaasna waa liibaanaya adduun iyo aakhiraba marka suurada faatixa fadligaas bay leedahay aan ku soo khatimaynaa suurada ayada marka maadaama la tukanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagula munaajoonayo macaanidaas inay qalbigaaga soo martaa la rabaa markaad tukanaysid waa inaad fahamtaa suuradda faatixa marka akhrinaysid
ilaahi subxaanahu watacaala inuu ku maqlahayo inuu kuu jawaabahayo sida xadiidkan uu muslim warinayo raximah llahu tacaala nebigu sala allahu alayh wasalam xadiisu qudsi weeye uu leeyahay qaala allah caza wajal allah wuxuu yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii salaada waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga ayaa naga dhexaysa salaada waxaa loo jeedaa faatixada qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayni waa laba qaybood walicabdii maase addoonkayguna wuxuu weydiistuu leeyahay faidaa qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadduu yihaah addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allah ilahi wuxuu leeyahay waa lagu jawaabaya xamadanii cabdii addoonkaygu waa i ammaanay ama waa i mahdiyey waidaa qaala hadduu yihaah addoonku alraxmaan iraxiim qaala allahu ahnaa calaya cabdii addoonkaygu waa i ammaanay ama waa i faallayey waidaa qaala hadduu yihaah addoonku maaliki yowmi ddiin qaala allahu majadanii cabdii addoonkaygu waa i sharfay ow fawada ilaya cabdii addoonkaygu arrinku ii dhiibti waidaa qaala hadduu yihaah addoonku iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala allahu haadaa baynii wa bayna cabdii midkan addoonka iyo aniga ayay naga dhaxaysaa waa ballanka naga dhaxeeya weeye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa towxiidka iyo ballanka iyo ilaah subxana wa tacaala aad la gelaysid wey haadaa bayna wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al waidaa qaala cabdu hadduu yihaaho ihdina siraada almustaqiim qaala allahu idaa qaala cabdu ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim غayr المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل intaan addoonkayga ayaa iska leh wixii uu su-aashana waa leeyahay marka waa laga ajiibaya insha allahu tacaala marka faatixada macnaheeda inaan tadaburno markaan tukanayno oo aan fahamno ayaa loo baahan yahay si salaadeena waxooga khushuuc ah insha allahu tacaala uu u galo biidni illahi tacaala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة